وداي داغ استمر شاشدا كدا وداي جانعني هوداي السلام عليكم دمانتين وايد السلام عليكم عليك السلام يا ابتليبان او idin leh that's all about it nolosha dhan waa share like subscribe maanta waxaan ka hadlaynaa su'aalooyin aniga aad ii lugooyay oo mar walba la iigu soo celceliyo qof walba inuu wax ogaado jecel yahay laakiin dadka qaar kood ma u maleyn karaan mana filayaan dadka aniga adduunka iigu nacab inay yihiin yani dadka aniga mostly close family aan ka dhiganahay look at this dagaalkii sokeeyay markuu dhacay dadka waxay u maleeyaan dagaalka sokeeyay inuu dadka baabi'iyay the mostly waxa dadka baabi'iyay qof walba intuu qof ka xigo aniga abtiyaashay kama filanaynin border xun ah oo gaala leedahay abtiyaashay inay istaagayaan yani it's very crazy markii dadka aan ku dhaho labada qof yani labada dhalinyaro oo Canada joogto oo aniga borderka iga soo celisay marka aan dhaho waxa waaye labadaas nin waxay dhaayaan oo soo reer abtiyaasha ma reer abtiyaashay intaas way kala dheeraysan yihiin waxa laga yaabaa labadan qof inay shabaa iskaga jireen shabaa yani qofka waxa jiro mar maskaxdiisa aysan kaamil ahayn mid koowaad Canada iyo aniga markii la yiraahdo wadankan waa u simanahay qof walba sharciyo meesha ku jooga qof sharci la'aan border agtagay ma jiro mideeda labaad aniga kama filanaynin gabar walaashay ah in ay dad aysan aqoonin caawa alla intay wacda inay dhahayso borderka laga soo celiyo yani shakhsiyadda ducfinimada waxa horta borderka iga soo celiyay mostly waa hal gabar iyo laba wiil saddexdooda markii la isku daro we are same family saddexdaba we are same family I mean close family okay qof close family adiga kula ma u maleyn lahayd gaal inuu kugu diraayo yani fiiri for example gaala u rufiyantay qofkii adi waxa isdhahaysay borderka laga soo celiyo hadii la xiro sharciga laga qaado oo aakhira loo dhaadhiciyo waa dheelaysmiya you playing me waa iska kaftamaysi waa baashaanaysi challenge kula jirta aniga waxa dibkaas gaarsiiyay oo heerkaas gaarsiiyay oo border 20 saac aan u drive kareynay aniga iyo walaalkay kuleeta 20 hours waxaan ka baxnay state kama Minnesota waxaan marnay Wisconsin waxaan marnay Chicago waxaan marnay Indiana waxaan marnay Ohio waxaan marnay Buffalo waxaan tagnay borderka Canada iyo Mareykanka Buffalo waxa ka hadlaysaa state aad u badan America markii lagu dhaxayo state-yana waa wadamo aad u waaweyn intaas oo dhibaan soo marnay border imaanay waxana lagu haysto ama waxa aniga la igu haysto ma ahan yani qabiil ma aha يعني سياسة معها أنا سياسة كم تجرو وقبيل كم تجرو وحال إسكو هيستا value وحال إسكو هيستا value كما ديجا إنا قف بحكرو state إنتو تجو أما ودن أو تجو وكسر بين كرو كما دي for example حدرتان أدان عرب كمريو ولكن هبي خليف وترافل وصوبيا comedy وصوبيا I never challenge him. Never, ever. حتى مسكحدي ذي مسوقلين هبي غلفنا على challenge كايو. قف كليته كذلك وبكسيح جرابه. قف والبنا وسولو يعني everybody. لكن صدق هذا قف أو أنيجا أدونك يقولنا أو بني آدم أهين أو شخصيات دور حتى شخصيات قبيل أهين أو ضعفئة أو دجالك يكتران يوحى يكتران iyo xumaanta ka buuxdo iyo dadnimo xumada ku jirto iyo dhiig la'aanta ku jirto iyo
faqsiga ay ku jiraan yani dambiyaasha ay ayaga galaan markii la fiiriyo iyo kuwa dadka ay ka galayaan aakhiro waxa macquula kuwa dadka ay ka galayaan loo cadaabo okay anaga borderka markaan tagnay waxaaba naloo dhijiyaba boosta kaarkii dhanba oo showga boosta kaarkiya intuu soo duulay oo wuxuu imaaday borderka oo gaalada uu imaaday atiliban waa kana that's impossible mideeda labaadna markay saas dhacday ka bacdi annaga waxaan ku wareersaneen waxaan suubiyay aadan waxaan uga xanaaqsanaa qofka waxaan aniga igu suubiyay one day he will come out one day adduunyo waa meeshan one day he will come out aniga horta reebtigay waa jeclahay waa dad balaaran waa dad shakhsiyad wanaagsan waa dad sheekh iyo shariif bale laakiin labadaas qof noocaasa u maleyn maayo xitaa reerka laftirkooda inay sheegtaan babo because dulli waa qof noocaas xaasid u ah ma jiro adduunka hooyadii ugu jeclahay xaqii hooyadii iga soo mareen laakiin waa dulli yani bini aadan ma aha qofka border gaala kugu diray gabar magaceeda ka sheekeynaysaa inaan sheegaad ka sheekeynaysaa inaan xitaa bini aadan xitaa ani gabar kaga dacwoodo weligeed ma dhacayso laakiin ducfinimo markay noqoto gabdhaha dumar waxaa jira gabdhaha ka sii liita oo xaasinimada yani qof iska jecel qof walaalkiis dhibkiisa qof iska jecel qof yani bini aadana xumaantiisa qof inaad jeclaato qof xumaantiisa yani gaalada ma suubiso yahuudda ma suubiso markaa waxaa suubiska bacdina waa tukanaysaa isku shaatiga soo qubaysanaya maxaa suubinaysaa you praying mideeda labaadna aniga waxaa dhibaatadaas igu suubiyey hal daqiiqa kama soo wareegan 1 minute xataa kama soo wareegan snapchat kala soo geliyay waxaa la dhahay Canada iska soo geliyay camal eray you talking American citizen Canada iska soo geliyay qof low key ah oo zero profile yani you talking an American person Canada iska soo geliyay Canada maxaa yaala America awood mideeda labaadna Canada waa wadan cadaan u leeyahay wadan immigrant meelaha shiishadaha iyo dhuxusha ka shishada fanaana lagu leeyahay magaciisa waxa laga wataa fanaan laakiin waa low key mideeda kale tan saakaya waxaan ka suubinaayay waa reaction videogiisa waa reaction ka suubinaayay ma taqaana wuxuu ku leeyahay dhikara sheegaysaa sokor iyo baabasiir aday kugu dhacdo I don't care because I believe you get what you deserve wixii isha bini aadanka ah waa cajiib qof adaa dhibaato ku suubisid ishiisa waa cajiib xaaskina telefonku ka furay isheeda weli way ku dhiman tahay waxaan ku tusaa tareen inuu ku kala gooyo lugaha dhan in laga gooyo oo adiga hortaada ay wax kaaga dhacaan anaga waxba ma kugu suubinino xaaska kugu maanaan darin kaamaanaan furin mid kale to waxaa jira aniga abti ah oo isku meel ay joogaan yani asaga ka sheekeynaysa familka asaga oo la dhashay hatta ana ayno wallahi iyo billahi iyo tallaahi caruurta oo dhalay iyo familka asaga oo ka dhashay yani I don't know ma fanaan markii la noqdaa la isbedelaa mase fanaan Soomaali agtooda wuxuu ka yahay yani wax aad u weyn qof walaalka ah dhibkiisa inta aad ku fakiraysid waligaa ma alfahaysid aniga waxaan aaminsanahay qof walba oo xuni qabiilka uu ka dhashay ma aha asaga waa qabiil dhan ma xumaan karo qofka asaga xumaan kara markuu asaga xumaadana asaga in la abaara fiican mideeda kale tana aniga
qofaan wanaajinaysaa markaa wanaajisid oo isdhaysid wanaagaagiya ku mira dhalaya qofkii adduunka ugu jecleen oo aad soo dhaweysatay waxaa macquul inuu kugu noqdo qofka kali magaalada ka joogayst laakiin I'm not guilty until no name. There is no proof if there is no name. If there is no face, there is no crime. There is no case board adu sa face bajirinba. There is no case. That means magacaaga iyo wajigaaga ani wax badan iskala weynaa. Ina magacaaga social media soo galiya I feel like I am just crazy. Marka maadaama Canada iga soo celiseen oo adinka aad ku faanteen inaad Canada iga soo celiseen يعني social media laba fanaan oo Canada joogto baa waxay tiraahday erayga soo qoreen wuxuu dhahay movie haduu bilowday keep enjoy it and relax who you think you are Canada one single paper magacaaga ku qoran yahay kuma joogtid waan maqlay caruura adiga dhashay inta guriga la seexatay ay ku soo ceeriyeen adoo shafaa ku jiro I know everything about you but I don't care because me is not you kii kale tana inay xaaski telefoon ka soo wacday oo la duubay oo social media la soo galiyay everybody knows that magacaaga ma sheegay because magacaaga is nothing to my side the only respect ani haya magacaaga aniga ana jecleen in aniga social media uga sheego because you are nothing aniga Somali Muhammad oo dan aniga iga badan qof ina magaciisa social media soo kaliyana I feel low-key dhamaantiina waa in salaamaya fanka Soomaalida xasinimada laga dhaafo borderkana adigu milihide adigu border subso border adiga aad leedahay subso wadamada aad tagaysid dad baa kugu soo dhaweeyay dadka kugu soo dhaweeyay hooyadaana ma dhalin aabahaana ma dhalin walaalkaana ma dhalin xishmada lagu soo dhaweeyay dadka kale inay ku soo dhaweysaa fiican rajama kaaga jirtaa ina maana soo imaatid dadka walaalahaaya oo rajada uga jirta inay Canada tagaan gacmaha kala bax di kale tana guri dhagax lagu tuuro leeyahay God bless America.